ninka Maxamed qisuu leeyahay runtii cajiiba waa nin walaalkeena oo different able ah si kale ilaahay awood u siiyay laxaadkii lugihiisa ma hayo sidii aan idinka sheekeynay ileen qofka ma gudbihii qiil buu haystaa qofka gudbaana mar walba qiil uu joogsan buu haystaa qiil buu helo wixii uu rabay ee ku weynaa ku dhabay Maxamed kaalay bal hadda qisadaada wax uga sheeg dadka السلام عليكم horta iga raalaad oo isku fiicin qodobada iyo hadalka marka hore Ilaahay waa mahadle marka hore waxaan u mahadnaqayaa saaxiibkay Maxamed iyo macallinkayga horta dalka waxaan imi 12 sano ka hor markii aan imi waxaan ka imi Thailand markaan Mareykan soo galay gobolka Utah ku soo degay kadib waxaan u soo guuray Ohio markaan u soo guuray la igu yiri waryahay waxa tani naafa ma shaqaysan kartid waxa lagu xareenaya wax la SSI iyo wax la hayn qof baa lagu qoraya guri low income mana waa lagu dejinaya wixii baa la ii process gareeyay wixii baan la bilaabmay qof baa ii yimaada la dhaho ku qorayo ku haynaya waxa la ii soo diraa nin Kenyaati oo maalin kasta igu akhriyo inaan shaqaysan karay anna waxaan rabaa inaan shaqaysto kadib markaan ku jiray sanad dhowyan bad iyo bad ayaa waxa yimid gabadh cadaan oo kisoo kara magaasaan ku ma shaqaysan karaa magaasay tiri ha from that day ogana shaqeeyo ayaa iyadu ku iga jar waxan furiista ma rabo gurigan ma rabo SSI ma rabo waan shaqo tagaya shaqadii ugu horeysan qabtay waxaan noqotay anigu dadka aan ka mid ahay wheelchair ka wata inaan gaari ku kaxeeyo oo aan wheelchair ka u saaro aan caawiyo oo waxay qabtaan aan u shaqeeyo kadib daas haddana shaqadii magaalada deganahay waxa aad uga shaqeeya trucka warka waxa laga yaabaa markaan shaqada shaqeeyay inaan qaato labada wiil 1500 1600 waxa ku oranayaa jimciga waxaan qaataa 2000 truck la waxaan isku dayaa inaan truck wado taas waa one truck ha so halkan maxaa ku jira horta sacbuu ku jira waxa kaloo ku jira farshaxan iyo farsamo in adoo lagu qoray inaad haatid in lagu hayo inaad adigu horta wax haysid kadib marka waxaan galay challenge baan galay markaas la war sidee gaariga truck u fuulaysa sidee u tagi kartaa sidee aad wax u samayn kartaa waan samaynayaa baan ku can do it waxaan u tagay meeshii wax process-ka baan bilaabay waxaan ku dhibaa waxa la mahaan control baa taamiso lugahan ka wadaya dhakhtar baa la diray dhakhtarkii baa lugayga soo jeegaray uu i fasaxay haddana waxa igu adkaatay horta dhakhtarkaas aan heli lahaa YouTube kan galay waxaan ka helay nin Indiana oo gacanta go'an tahay oo process ka maray information kii markaan cid Soomaaliya taqaano waayay ayaa waxaan baaray Google waxaan tagay YouTube ka waxaan ka baaray SBE program si loo helaa ninkii sharaxaya waan dhageystay waan galay waan daawacday dhakhtarkii haddana igu adkaaday aakhir waan helay imtixaan dheer kadib I did it waa soo qaatay liisankii hadda waxaan u shaqeeyaa Amazon from that day magaalada Minnesota markaan imaado waxa lagu yiraahdaa ma lagu caawiyaa imsa saacad baa lagu hayaa magaalada marka waxay ku daweysay markii 5 sano baan imaada waxay ku daweysay Minnesota 2020 marka ibka ay soo xigtaa marka dalkii waa iska tagaa waxaan tagaa Asia ku badan oo halkaasaan tagaa marka magaalada marka saa imaado wariya Maxamed imsa lagu hayaa سكون أول اللي هي أنا شقيسته لكن هذا الكلام وحن كهاي تكسبية like لوش إذا أنا قبضة قف كستانا وحنا مسوي وحنا وحنا قبضة كرو. What a beautiful story. Yeah. What a beautiful story. What a beautiful story. Yeah. والله بالله. وحنا السلام يا صاحب كده المريرة. والله بالله. What a beautiful story. What a beautiful story. محمد كرتدا. محمد واحد استانو تاي كرتدا. إيه nin in la hayo loo qoray oo laakiin isagu isku qoray inuu wax hayo what a beautiful story
what a beautiful story walaal karaamada iyo kartidaad astaan u tahay noolo walaal dadkana qisadaada u sheeg qisadaad wax badan bay dadka bedeli kartaa waa ka fadhiisanaynaa qisadaa si special ah ayaan qisadaa idinku soo gudbin doonaa waliba caawaad ku day waa markii ugu horeysay aan breakfast uga sheekeeyo sheekada waa first time aan ka sheekeeyo breakfast waxa jooga qofna qisada ma oga waxay la socdaa walaalkayga yar oo iga yimid isu dhow isaguna waa kaale walaalo waa dhikaasina waa isaguna waa martiino yahay dhikaasina walaalkayga yar aad baa maasantii waa fursan kartaa walaal marka waa caawan waxa weeyaan qisada waa markii ugu horeysay aan ka sheekeeyo ninkana saaxiib baan dalmaryare waxa dhacday dalab baa wuxuu igu yimid gurigayga markaa wiil jir kama qaadan jiro gacmahan ku socdaa oo markaa waxa tagayo dalmaro wuxuu arkay gacmahan ku socday caynkuna waa iska socday wuxuu arkay anoo taagan oo jikada taagan magaasuu oo ma istaagtaa وطبعا واحد عادي أروق عماك السعودة أي إذا كمان مرتين نويمد بدكوا بريق عماك السعودة واحد بالكون كاس كوارقني وحوار كانوا تاجون أول حرنية بركاز يقول والله اسمنا بريني بريشون أكثر سلوا ورسلك بركة ستوبر أنا وارجع يستاجي هذا هي سلام thank you محمد محمد ولكن أرتاح السلام يا حنا بلينا 10 بدر ما أنت ماشى الله جبرتي waxaan rabaa inaan walaalkay ka codsado anu qisadan وهاي اسوكين دمبيسانية سجى بعد حمل أنا تضرب سنة كور باسوكين دمبيسانية ولا كي أنت كلوان اسمك اللي جرنا تلفون لكن إنه بروسس كاس دير مريم موجين إلى هاي هدو مال حبين جركا كم إذا وكنا فيه وحو أود سيا حبناه كله وحنا مالنا يدد بدن أو إسقوا كلاء أو وددا أو مري مال أو مر لا إني جيران محمد وحنا قعد سنة إن دد كاس معلم من نقطه أو برتو أو تكشى كيسو أو واحد لو داهية أنت سكاعد سنة وما سنت هيك horta disability ugu xuni waa disability-ga maanka qof ilaahay wax walba siiyo qalbadu ay jaban tahay wax ma qabsan kartid ka dhaadhacsan tahay baa meel walba fadhiya that's the disability-ga runta soo sama marka maxamed karaamaad leedahay walaal allah ku sharfo safarkaaga allah karaameeyo walaal wad maadsanta waxay la yaabay markii walaalkay ayaan ku waxaan tagnaa Minnesota asur madiyadi raacna markaas soo kormay gaarigan ka xaysanna markaas uu imse jibtaa 3 saacadood uu yaabay 13 hours I drove so halkan so I came last night so I drive my car so I say I listen to the car drive cray sometimes I drive like ila inta ka drive crayo Ohio ayaan ku tagaa Dallas like 1000 miles so war caawa horaan idinku sheegay xujo ma haysataan baan idin idhi ilaa aad wax qabsataan u weeyaan